السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان اختيارتك وحيران برتان كلنا هاي يوتيوب برشاد شيبارك سو دوادا ساد هربا نوغا برتي waxaan idin soo gudbin jirnay casharaan taxanaa oo shaybaarka balse maanta waxaan soo diyaarinay cashar ka gadisan kuwii hore insha Allah muddo isbuuc ama 2 isbuuc waxaynu u soo gudbin doonaa dhamaan khiyaarta nagu xiran insha Allah casharaan ku saabsan xubnaha bini'aadanka ee ku yaala gudaha ama loo yaqaan internal organs oo ay ka mid yihiin kasoo bilaabmaya hunguriga ilaa iyo midhgarka weyn ee ugu dambeeya meel xagga ugu dambeysa ku yaala xubin kasta meeshay ku taalo shaqada ay qabato muhiimadda ay jirka u leedahay hormoonada ay soo deyso kuwaas ayaynu isweydiin doonaa insha Allah casharka ugu horeeya ay maanta bilaabina wuxuu noqonayaa haddii Ilaahay yiraahdo thyroid marka thyroid xagga ku yaalo qaabka uu eegyahay shaqadiisa muhiimadda uu jirka u leeyahay xanuunada ku dhaca kuwaas ayaynu isweydiin doonaa ugu horeyn thyroid waxa ku yaala qaybta hore ama dhabarka hunguriga ama qoorta qaybteedan soo horeysa wuxuu ku wareegsan yahay tuumbada neef mareenka ama taraakiyada loo yaqaano ayuu labada hareerood ka haystaa qaabkiisa ama shiibkiisa waxa uu eegyahay sida balanbaalista oo kale ama butterfly-ga waxa uu leeyahay laba garab oo yaryar oo loo yaqaano lobes labada garab ee hareeraha haysta oo lobeska loo yaqaano iyo labada garabna bartamaha ay iskaga yaalaan qayb bartamaha oo loo yaqaano ethmoska ayay ku kulmaan shaqooyinka uu qabto thyroidku waxyaabo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah shaqooyinka uu inoo qabto inuu soo daayo hormoonadaas saddex ayaa ugu sii muhiimsan waxaa la yidhahdaa T3 oo loo yaqaano thyroxine iyo T4 oo loo yaqaano triiodothyronine loo yaqaano iyo calcitonin saddexda hormoon ee ugu muhiimsan ee uu soo daayo waa saddexdaas haddaba saddexdaasi waxyaabo badan ba iyagu sii qabtaan oo jirka u sameeyaan waxyaabaha ay jirka u sameeyaan waxaa ka mid ah inay ka qayb qaataan xawaaraha metabolismka ama siduu jirku uu tamartiisa uu soo saarto inay qayb muhiim ka qaataan waxa kale oo ka mid ah kordhinta iyo hoos u dhaca heerkulka jirka inay heerkulka jirka ay balance gareeyaan tusaale ahaan xilliga dhaxanta xilliga qaboobaha waxyaabaha sida heerkulka jirka uu shaqeynayo sidoo kale waxyaabaha ugu weyn ee ka mid ah ay maxay ahayd toole xubnaha aan soo sheegnay ka qayb qaataan ama saddexdaa hormoon waxaa ka mid ah xakamaynta garaaca wadnaha oo wadnaha xilliyada waxaa jira kuwan ay hoos u dhacaan ama ay kor u kacaan iyagaa saameynaya garaaca wadnuhu hadba sidoo noqonayo kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah iyagana shaqooyinka ay sii qabtaan kordhinta iyo koritaanka hormoonada iyo unugyada gaar ahaan caruurta oo kale koritaankooda inay kor ay qayb muhiim oo laxaadle ka qaataan maadaama oo ay koritaanka unugyada jirka ay qayb ka qaadanayaan caruurta yaryaroo kalena aad ay qaybahaas oo kale ugu shaqeeya kuwaas waxa weeye waa muhiimadda uu jirka iyo waxyaabaha ay u qabtaan waxaa jira iyana koritaanka oo kale heerkulkii jirka oo kale metabolismku siduu u shaqeynayo oo kale garaaca wadnihii oo kale waxyaabahaas oo kale waa waxyaabo ugu muhiimsan iyana waxaa jirta haddaba xanuuno ku dhacaa jira xanuunada badanka thyroid ku dhaca 4 ayaa ugu muhiimsan wax loo yaqaano hypothyroidism oo inuu hoos u dhacaa oo hormoonada soo deynayeen kanjarkan inay hoos u dhacaan iyo hyperthyroidism oo ah in waxyaabaha ay soo deynayaan ama hormoonada uu soo deynaya kanjarkan inay ku bataan jirka iyo wax loo yaqaan thyroid cancer inuu ku dhaco iyo gout wax la yiraahdo ama goiter wax loo yaqaano oo ah in kanjarku uu bararo oo inflammation iyo waxyaabo badan oo caabuqa uu keeno inta badan waxyaabo kale way jiraan laakiin afarta ugu muhiimsan ee xanuunka ku dhaca waa afarta haddaba afartan haddii ay thyroidka ku dhacaan maxay sababi karaan tusaale ahaan haddii aynu isbarbar dhigno oo kale horta dee hadduu kansar ku dhaco oo kale hormoonadii lasoo deynayo oo kale ayaa khalkhal ku dhacaya ama way yaraanayaan ama meeshay ka baxayaanba
oo hormoonadii buu qofka jirkiisa u baahanaya oo tusaale ahaan haddii hormoonadii la soo daynayay tusaale ahaan calcitonin oo kale oo maamusho calciumta jirka ama balansigeeda ama xakamaynteeda ka shaqeysa ayaa waxa ku dhacaya inay dee ama xadkii ka baxda amaba la waayaba oo deetana calciumtii jirka wax balance gareeya ama ka shaqaysiiya la waayo ama xakameeya tusaale ahaan haddii thyroidka oo kale T3 iyo T4 oo kale ay iyaguna meesha ka baxaan tusaale ahaan waxyaabaha khalqa ku dhacaya waxa ka mid ah koritaankii qofka oo kale garaacii wadno oo kale heerkulkii jirka oo kale xakameyntooda waxyaabahaas oo kale ayaa iyana khalkhal ku imanaya markaas waxyaabaha ugu badan oo waxa weeye haybada iyo haybarka marka labadan kale laga yimaado haybar iyo haybada markay qofka ku dhacaan tusaale ahaan haddii qofka hypothyroidism ku dhaco oo qanjirka hormoonadu soo saaraya ay hoos u dhacaan waxyaabaha dhacaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii hoos u dhaco kale hypothyroidism uu qofkii ku dhaco qanjirkii waxyaabaha qofkii uu ku keenayo waxaa ka mid ah koritaankiisii oo kale qofka koritaankiisii inuu saameyn ku yeesho metabolismkii oo kale inuu hoos u dhaco heerkulkii jirka oo kale inuu qofka qabow oo kale uu noqdo oo uu maadaama hormoonkii uu active gareynaya jirka balance uu ka sameynaya uu hoos u dhacay oo kale haddii hyper ay dhacdana intaa cagsigeeda dhacay garaaci wadnaha kor u kacaya markuu hyper ahaa hoos u dhacay garaaca wadnaha laga yaabo inuu bato koritaankii qofka inuu si xad muxuu ahaaye si uu koro oo kale ama jirkii balancegiisii ama weigtkii oo kale uu weight badan yeesho halku marka uu yar yahay uu weightkiisu yaraa markuu batana weight muxuu ahaaye maadaama metabolismki uu xoog u shaqeynayo oo kale metabolismku uu xoog loo dardar gelinayo marka xanuunadaas oo kale markay yimaadaan kolla waxyaabihii jirka uu soo daynayay ee loo baahnaa kuwani ka shaqeynayeen baa kor u kacaya kolla hoos u dhacaya marka insha allahu casharaan taas taxanaa baynu ka sheekayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo ama maalinba mid aynu si dadku ay u fahmaan dadyo badan oo xanuunadan qaba oo tusaale ahaan marka calaamadahan oo kale ay dareemaan oo yidhahdaan wallaahi aniga calaamadaasaan leeyahay malaha waxbaa jira oo kale ay isku baalayaan thyroidka waxyaaba ugu muhiimsan qofka oo waxyaabo badan oo noloshiisa ka mid ayuu saameyn ku yeelanaya marka insha allah maalinba mid baynu soo gudbin doonaa oo aynu soo qaadan doonaa intaynu casharkan kan ku xiga aynu ku kulmayno insha allah khayr badan baan idiin rajaynaya dhammaantiin subscribe-ta iyo like-ta inala moogaanina haddii ilaahay yiraahdo insha allah qof kastoona haddii aad calaamadahan oo kale isku aragto commentiga inala wadaag dhakhtarna booqo insha allah khayr badan baan idiin rajaynaya dhammaantiin